kulanti wanaagsan bulshada Soomaaliyeed ee meel kastoo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada waraysi aan la yeelanay laba nin oo dhalinyaro ah oo Ilaahay u sharfay waa ducaad waa ganacsato waa qorayaal waxa weeye waa dad caan ka ah bulshada Soomaaliyeed dadkuna ay aad u jecel yihiin Ilaahay ha jeclaado waxaan lagu jeclaaday wanaaga iyo horumarka iyo sukeenka ummadda Soomaaliyeed iyo tabarucaadka iyo ka qaybgalka waxyaalaha khayriga waxaan isweydiinaysaa labadaas shaqsi waayo maskaxda ayaad ka baaraysaan intaan idiin soo bandhigin laakiin nimankii waxay u xoobsiibteen qorayaal waaweyn oo gowsa dhacsaday laba buug baa dabka laga soo qaaday oo aan inaba caadi ahayn titlekooda markaa idiin sheegay idinkaaba yaabi doona buugga koobaad waxa uu leeyahay daawada murugada dunida oo dhan waxay raadinaysaa farxad qof kasta oo bini'aadan wuxuu rabaa inuusan walwalin murugoonin qalbiga u dego dadka qaarkood aan diinta islaamka haysanin waxyaalaha qaarkood ay qalbiga dabcan ay ku dejiyaan waxa weeye balwad iyo baashaal iyo sheekooyin noocaas ah laakiin taas waa jirkoo loo raaxeeyo iyo ruuxdoo la cadaabo ruuxdu marka ay nafisto oo cuntada ilaahay ugu talagalay ay hesho jirka iyo qofka waa laga dareemayaa haddaba daawada murugada ayaa buugga magaciisa la yidhaahdaa buuggaas ayaa waxaa ku farayaraystay maskaxdiisa u shiilay abubakar waan u imaan doona haddii ilaahay yidhaahdo dhinaca kale jacaylku kama maqna ilaan haddii qalbigii la daaweeyey nolosha qof uu la qaybsado u baahan yahay cumar faaruuq oo asagu noloshii singalnimada ka tegey ayaa la fariistay maskaxda shiilay wuxuuna dabka ka soo qaaday buug la yidhaahdo jacayl aan dhammaad lahayn yaa salaam waa kaan wada raadinaynay weeye jacayl aan dhammaad lahayn ما شاء الله عادي أنا بكون سلوينا أستاذ عبد الحفيد سيدا قيمها إيقاعها إيقادرينتا يوناك مضن أدوك سلوي برنامج كاجا الله كحفظي وكف أحسن هيرونت إنا قيب كان نقضى عاوة وقت أسلق على نوع إذا ما ولا دعوانا ين عادي أتبعوا ما تغنيا سيدو كلا أستاذ عبد الحفيد وسلامنتا أديك يا أصحابتا إذا وداشا قيمها بدن قف كستو قيمة بدن وحاكوتي حان وحيد أصحاب قيمة بدن وعلى كتحان عبد الحفيد أوفيشال الجنرال كيس دمانتي وحد لنا هاي بوليس الله سبحانه وتعالى بركايه وقت يجي الله سبحانه وتعالى نكسر كلنا آمين 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 اللهم آمين اللهم آمين إلهي سبحانه وتعالى ذكرنا حفظيه دور سؤالود أو ديران أو جدكو أي اسوي دينيين أياجرة مركو هرنا عاسي وحن كور مريا ديرا هذا أبو بكر مروجذا داوود مروجذا dunidu waa walwalaysaa waa la seexan laayahay qarow iyo walwal baa lagu jiraa dadkii qaarkood waxa weeye in yar marka la fiirsho ilaahay baan kasii fogaanaynaa ilaahay cabtaan ha astura ilaahay tadmayna alquluub ilaahay xuskiisu qalbigu ku qabowaa bal buuggan maxaad ku aliftay oo titlekan quruxda badan ku keentay nuxurka buugga iyo bilowgiisiina bal marka hore nooga yara dhacintaanan jacaylka u gudbinin هذه الله كحفظيه وسؤال آديات مهم ولا ضمن سويدين يان وما حي صوتك دلسي إن أتقطت بوجن وما يعيسو أي تهاي داود موجودة أنا قال بس أنا كور وحان كور وحيت بوج لقوم مجعبه كور حيصن الله شاذ بوج اسمه كان صوص صاري بقول نقطة وحيت بوجات وجو قاعدة شذ بلان أم وجو جرش بلان ضد بلان أي إيمانية أو ده هي نلشة إذا أي بوجس بدلي gaar ahaan qaybta ugu horeeya buugga magaciisu waxay ahayd hamurugoon qaybtaas 15 bog oo kaliya ay ahayd marka dadka aad iyo aad ay ugu helaan qaybtaas su'aalo badan ay li weydiinaa oo bakaro sida murugta lagu bixi karaa oo bakaro murugta iyo wixii la mid ah u shaqeeya waxyaaba markaan arka baahi bulshada ka jirta inay tahay ayaa waxaan go'aansaday in mar labaad aan soo saaro buug dhan qof rajadiisa dib u soo celinaya siinaya awood uu ku sii socdo noloshiisa marka ay mugdi gasho buug dhan ku dhahaya hamurugoon sabar wax walba u qalantaa hore u soco haquusanin haraja dhigin dulqaado ilaahay baa kula jiro murugta iyo dhibaatada dhan
ku haysta adaa ka awood badan fikradaadu wanaajinaya maalmaha uu qurxinaya waa buug yani maasha Allah taala xal u ah dhammaan qofka dhibaatooyinka nolol maalmeedka uu la kulmayo oo dhan quraanka aayadaha quraanka ka sheekeynay murugti farxadda dhan baa isku keenay ahadiis nabi sallallahu alayhi wasallam farxadda ay murugti ka sheekeynay dhan baa isku keenay hadalada culimada baaritaan ugu dambeeya la soo saaray 2021 baa isku keenay dhammaan waxaan hubaa aan aaminsanahay qofka in uusan ka waay doonin xal ka mid ah murugada qofka nolol maalmeedkiisa uu la kulmay وهجاج داود يا الله مقليسان ولا ولا دينتي حديثتي عدا دينتي حديثتي مركا لغا هادلو waxa weeye waxa kaliya qulubta daaweyn kara nafta u raaxayn kara xasilooni ay ku heli karto nin ajnabi hadda koor wuxuu igu yiri waxaan meel aan ka gala la ahay oo ka baqanaya habeen iyo maalin naftayda gudaheeda asaga iska baqanaya maxay yahay xasilooni ayuu raadinaya aad waa gartay أو بكر واقوسو نقوليا أنا أذكر الدمار ماينو بل لنا عايش يجعلكو أذو هذا محبك أوجين أيام ما نقول سن يا وحالي فسألوا أهل الذكر واللي إذا ساعدني عمر فاروق عمر سولو marka hore waxaan balyeynaa dimaashadiina waa salaamayna ubad khayr qaba wiil iyo caano gabar iyo caano kuwa dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda afacalaha ka dhigo buuggaanu waxa uu imaanayaa xilli guurkiina uu batay furitaankiina uu faraha ka baxay waxaad maqlaysaa shalay dadkii isguursaday 2 wiil kadib bay kala tageen sanad kadib bay kala tageen dadkeennii hore odaygu markuu xaas guursado konton 60 sano wada joogi jireen waalidkeen jiilkan cusub waxa moodaa sida dharkii baa guurkii macnihii baa laga qaaday aadiya buuggan quruxda badan alifkiisu muxuu salka ku hayaabata ustaad ilaahi subhanahu wa ta'ala ku xifdiyo waa sida ay sheegtay furitaanka aad u tira batay gaar ahaan waxa la sheegaa waxay tahay baaritaanada ay tilmaamayaan furiinka ugu badan ee qoyska bilowga ah wuxuu dhacaa waxay tahay 2 sano ugu horeeya ee guurka عجيب anigu asxaabo badan wiil saaxiibo aan ahay dad badan aan isnaqaano waxaan arkay ayagoo isguursaday haddana kala booday iyo xaalado aniga aan dul istaag u ahaa dad xitaa jecel isku guursaday aan dhihi karo haddana kala booday buugay wuxuu diiradda saarayaa oo aad iyo aad u dhexgalaya oo la falgalaya waxay tahay qofka inuu fahamsiiyo macnaha nolosha guurka iyo macnaha qofka loo baahan yahay markuu qofka qalbigiisa u qalmo waxyaalaha uu ku dooranayo wuxuu saaraya uu ku leeyahay waxay tahay doorashada wanaagsan waa bilowga degnaanshaha haddii doorashada aad wanaajisid degnaanshaha iyo qoyska inay raagto iyo jaceelka inuu si fiican yani u bulaalo ayay keenaysaa عجيب kadibna wuxuu qofka u sharxayaa waxay tahay jaceelkaas la dhisay oo silbaha loo taagay sida aad si jaceyl joogto ah jaceyl lagu dhigi kartid iyo caqabadaha nolosha ku imaadana sida loo maaray ama loo xaliyo talooyin gaar ah ragga ayuu siinayaa iyo talooyin gaar ah dumarka waalihii qaaliyiinta ah ayuu maxal tala siinayaa maasha Allah yani buug waxay tahay macnaheedu Ustaad Cabdixafiid maadaama aan ku nool nahay anigana in badan aan nolosheeda qayb ka mid ah aan ku soo koray dhinaca Yurub qurbaha reer galbeedka in badan in boqolaal buugaan ka akhriya arrimaha guur ku saabsan anigoo 8 sano xaas leeyahay khibrad aad u yar waa markii loo fiiriyo arrimaha family iyo wixii la mid ah nolosha maalin walba wax bay ku baraysaa maalin wax baa kulmaysaa wax baa arkaysaa iyo wixii la mid ah laakiin se yani culumta hadafkeedu waa culumta oo maxalli jiray galbeedka iyo culumka shaqo awsadka carabaha iyo dhaqankeena yani kulmiyo hal duwan ka soo saaro buugan waxa aaminsanaa waxay tahay wuxuu ku leeyahay waxay tahay beenaalaha shukaansiga sida uu ogaanaysaa wuxuu kugu jihinayaa waxay tahay kugu haboon qofka inta aadan la dhaqmin waa ogtahay dadkan reer galbeedka waa isla dhaqmaan kadib isguursadaan qofka adigoo la dhaqmin sidee psychology ahaan inay xaqiiq tahay waxa uu damacsan yahay si ku ogaanaysaa wuxuu ku sheegayaa waxay tahay qofkan hadaladiisa si la dhax fahmi karaa inay beenta inay run tahay qofka wuxuu ku leeyahay waxay aragti yani qaacido badan ayaan adeegsaday oo aragtida loo baahan yahay in adoo shirkad aasaasiisa kala ka dhigay
مقام شركة سواء إيميل ما بدأنا قابلا يتوما مع الصومالي وحن لفل قلب حيتها إن قاكود عنده مع هذا محلي نعس وجيران قاكودنا عن محلي جري قاد كفتنا عن كده جاي محلي جري علمي عن قوه ما شاء الله تعالى ما شاء الله ما شاء الله إن شاء الله ومقلسان هدي أد كهر جلي أداد كهر سن ويدعمين يمارين جعيل يو محيطو أن حب كوها يا قبر صوماليات أما ويل صوماليات أنا محلها فلنقين لا هاي بوغان لا أخرديد ويواتي هستي أيتين نف جعيل هاي ما أرجلو يمحل أما ما هسكين على شيخ هرجلي ويدي أحاديثتي iyo khibradii iyo quraankii iyo nuxurkii soo koobay laakiin sir baa fakatay oo wuxuu yiri qofka beenta ku sheegaya calaamado lagu eega buugga ku jira gabdho maxay midna shukaansadeen labana arrinta way iska daba yimid soo dhawo Umar وزاد لا خير كوسيه هدفكي وحي أهد ولي بارتان بدن لباتن قف وأنا قانو شخصيا والله وقتي يكون خسارين وأن محلي جري عن وعي شخصيا يعني هو بوسري يكون أم بوسري بارتان بدن أسميه جد ضد بوسري أم بوسري وأنا هاي وحيت هاي سؤال إلى بقول سؤال انتياري ما كستان وعي كان كوارن كان سديا وكان صوتا وحنا أسمينا محيت هاي قفك سيدا الشخصية دي زتبت أكو أوغان كرتيد أو أما بيديس هنقضو أما فعليس هنقضو أما الدرين قبو شو كان سيكون كور هنقضو أما محلي جري فعلا جهال البلد فعليا هنقضو وحيالا آد أترى بلد ومن يرد آد جعل سم دوان أن سلايا هاي أي أمبوبي بفور ما شاء الله تعتاس نكوب شعرستا وحيالا بلد نواجه جي خياتنا محاول مقعاو جيهي وقود جيهينا وحي حتى وحاجة قبلها يو ما كبو فيلنا شو كاسي أو كليه. هاي. يا. طيب حاجة لها يا شو كاسي دائما لها. ريوانيس وحكمت ما كبو فيلنا شو كاسي. أرنتها صح يوسف عمرو نوجس عطا دانا الرجل الصوماليات. نقول يعني حيت عليك وحاني سنة وحي إلا وهذا وفي عند حتى وحاني هذا عليه قف كستوكو شو كان صدق وما قال ما إنه بوصل. ما كان شو كان سنة معناه هذا ما هي ناس جوسن إنسان، وين ناس بغن إنسان. دبعتوا يبغى على حكي أنا خلطت عن سمين رجع مكان كهذا نام دوما كحتى خلاص اسمه حكمت قفك عاش كان استحق وما ناس ناس جوسن إنسان تصح معه. قفك عاش كان سنة إنسان معناه هذا وين ناس بغن إنسان. لكن مسكح هذا اللي سوى جوسن هنا مسكح هذا الجوسن إنسان فكر كي جوجين إنسان. هذا لو إن إسبرانو عن محلي جري إسكوش كان سنونا مسكح هذا غير بلاوي سنة الشقية سوي فكرة إن بعد خوف كان شخصي بس يالله زي دريس تاعك أجد لو وش كان سوي جوزينا ما كان جوزنا حيوان نزل خوفنا وتحقق ضبطه. وقرتي ميل في عنا كويسة مركب فرصة أنا وكلينا إلى أفتمج علي نين أضيع عمر فاروق أضاع كل هذا نين أضيع قرب كاغو فردية زحسي في عنادية وما قرن سومالي وحكى له شيء قبلها عقوق روح ضبط الدنيا الله صح ما شاء الله نين كان أضيع سيدي بالله تلور هذين تلال كجعلك ما أقوم دوي ساق بحالي جاي أنا وحنا منطقة أو فكرة وحنا داود الموجودة بجعلك الله أنا أول شيء معنا الرواية ده ما دام مقتاي وحلا مقدي في مكان ما نستاد أي وجوك كلوا إنه بحا هذه لو بحا ممكن بحاول جعلت ماذا صحوه وحاول جاي بحيتها بوجي قفوه أو هدين دون أبو بكر صحوه إن شاء الله تعالى قفوه أو هدين أبو بكر وهاي وحنجينا وحيتها حيتها أنا وحنا ولي استعد حفيد هالشيء ما عم كون تصل صح هذا ما أدب قربانين صوبتك أنت وكانوا قبلك الدوران وايبو ملاكي إذا حيتها أنا وحاول وحيتها دي على قبل أو بك وبوسندر إن شاء الله تعالى وين أدوم وين جبتها إن شاء الله تعالى أنا دائما سرقيها ها ودعكتها وحاول بقول وحيتها أستاذ حفيد إني يدعين بلانية أوكي أنا إني يدعين خير الله كفيه وحروا أبو بكر نوسو جنستو أبو بكر وحتى إن أهل الدين شرف له الحمد لله إلهي قوي وناسم من كل اللي
wanaagga iyo khayrka wadaan meel kastoo aad tagtaan ummadda Soomaaliyeed idin soo dhaweynaysaa albaab walba Ilaahay baa idinka fura idin sakhira saaxiib hadaa adiga kugu soo dhaweeyo ciyaartu markay final noqoto 3 daqiiqo noo hartay rigooro lama cuno haddii kale lagu iloobi maayo gabdhaha Soomaaliyeed oo daawanaya inay maxkamad saaraan ma rabo adigaan maxkamad saaraynaa xaalkuwaas ee goormaad guursanaysaa maxaadna ku dooran lahayd gabadha guursanaysa insha Allah ta'ala والله إله وحفظيه سؤال وحي ودي سي ما شاء الله عادي أدقوا بدن جواب سؤال ماني ويوقعدي وقت إله وحفظيه مساشك تويا والله قبلنا الصومالي قبل كقيمة بدن كقروح بدن يعني قدرين في عن كدريال في عن كجعيل بحن في عن مجرتوا قبل يعني تنعوض بالله سبحانه وتعالى كذا ما يستري إله سبحانه وتعالى حفظه آمين إن شاء الله تعالى أنا قفك وحاجة مكتنلوشيسا مربى أهداف جار أيولي مكة مخشوين جرتي عن لها لكن إن شاء الله تعالى هذا بوجا مكة وصاب حي ترى بقى كم دان أقصتي والله أديت بويسو جيتي وحامل هذا وحان رباب إنا بلابو بنت حداقي زبنت جاركم هذا رباب إنا بلابو إنا غادي وقبل جوسلها يبوجنا إن شاء الله تعالى صاب إنه نقضى إنا هذا إن شاء الله تعالى قبل أيوها بون قبل ما حكوا دورنا لا كوت ودين لبعض وحيته هي دين كذب ودبيعات ويا أخلاق دبيعات في عن سوجيته سدحاتنا وحيته هي قبل دلقات بان صبر كان وإي مهم صوبته وقت أنا واسكا مشغول هاي ما قبل وحيته دلقات بان سدحات أرموت أن قدران لها تلمان إيه إن شاء الله تعالى ما كوحجنا وحد رئيسي كان كذب إن شاء الله تعالى إنه واحد بضم بدل دون صاحب هل أرينا مهمة كتكتي ليه قروحك كورا يدا والله قاعد قبل سما خورني الله يا عمر ليك السياسي واي هو حالة استودينا ما شاء الله أوكي لا وحن ربا إلى متكين بهال دقيقة سيو فرصة عمر بان كبر أبي عمر فاروق بوجان حقين لقيه اللي كره طبعا بوجان وحلاقيه اللي كره وحيتها أونلاين كا وحلاقيه دربنا وحيتها لا يبلا ما عنده سبتيدا أونلاين كا وقصة أبو بكر m.com جاوبت زين واحد مدرج وحياه يلا حبيبي قدر بوجان وحوجة دوية هي بوقت كالأردن صدع تحفيز وحوجة دوية وحيتها هالعين وآد مهم بواح وبعد الله سبحانه وتعالى أن أنقو عن سنة إلى خرسية قدام الله على كل ميانة صابوها إنه ندير كديو وحيتها ما دام حالة أذك وضعي وقبلا وكسوين هي ودن كينا صوماليا أنا كان هاي بوقتان سلك واحد نوشة وكان لو قدم دونه إن ولا عليه الصوماليات بوقتان وحي لقطة قيبت أوبرا إن شاء الله تعالى لو أفرين دونه وحلو قوان دونه دتك مساكين هو يدا إيابها أنا هيلي كرين حليان أذك حليان كورونا وكسي بدنا إياه ودت بدنا جوه إيجوان لو طلقلي إن لو أفرسيو إن شاء الله تعالى بإن سبحانه وتعالى آيات محلين كو عن سنة إلى عمل كني خلاصة كديك اللهم آمين لكن هدف وحيد هاي واجب أن يجوا أحقف كستو إداونا يبقى إن ودن كينا هوي حالة أرب يكون صوص عطو أي حالة هذا يكون جتبه إن أنجاب استاجنو تاس واجب أنو تهاي قف كست واجب سأنا واجب أنو تهاي قف كستن وهاد إداونا واجب أنو تهاي لكن بوجا إن شاء الله تعالى ما دعني عن هذا قهني أنا أغنى ما شاء الله تعالى إن ذلك يسفي عن وجعل إنسان دولان ما دام ضد نموت حيين وحن أصحاب تسي أنا يبغى فحد وحكم ده والله ليه هذا اللي شيء إنه قفك واحد بحصل marka aad buugan akhrisanaysid khaas ahaan daawada moogad iyo amjaarka noqoto ina u niyeysatid ina sadaqan aad la buuxisid farxadna waad ku helaysaa ramadaanka dad baa lagu afursiin doonaa hawshaan waxa u xilsaaran lacag kastoo meesha qaybta ugu badan laga helo inaan u dhiibi doonaa maanadaasi alfa trust oo gudoomiyaha uu yahay daacal kulmiye ayagana ay fulin doonaan maadaama xarumo badan ay ku leeyihiin iyo wax badan wax qabad fiican iyo amaano iyo wax wanaagsan ummadda ay ku taqaana ay ku aragtay in ayaga ay fulin doonaan insha Allah taala bishaas oo dhan
إن شاء الله تعالى تاسل بشارك الأصحاب أن أشيك لها إله سبحانه وتعالى نحفظيه قاقرتي خير الله كسيو وحان جعلها مركان إنان أبو بكر كسودو ويا last minute أذا اسكال أبو بكر كسودو أدي إله سبحانه وتعالى أخو حفظي وسعد حفيد سيدا قوح ضبلا ونكسن أد مقعزم تي برنامج كاغا ولا أنا حد إلى وحيتا إذن كان أدي بقوم ما سنتين سيدا قوح ضبلا أو دابنيسين يلي يوم إن شاء الله تعالى بوقاكتن سيدا أستاذ عبد الحفيد وشاقي عمر غوفة فهي يعني قبل إن شاء الله تعالى أتقاطان قلطان بوق نواد هلي دونتان علمي يقون dadka kalena uga fursi doona insha Allah ta'ala sidoo kale ustaad Abdi Xafiid na uu kala kiciyo YouTube-ka subscribe u saarayo insha Allah ta'ala haddii ay jirto su'aalo kale oo maskaxdiina ka guuxaya comment-iga nagu soo qoro insha Allah ta'ala mar kalena adana kulli kala yeesho doona si au jawaabno su'aalihiina insha Allah ta'ala Allah idin xifdiyo maadaama aad tiri subscribe hala saaro waxaan rabay inaan intaa ka hor maskaxdeeda waxa ku jirtay inaan maadaama aad weli single tahay inaan numberkaaga hoos ku soo qoro laakiin anaga ma isku bilaawday hadda waa kaa dayna waa ka baxsatay khiyaarta daawanaysa waa maqlaysaan labadan buug wixii dhaqaalaha ka soo baxa waxaa la rabaa in dib loogu celiyo dadkeena jilicsan ee bisha Ramadaan ay ku soo fool leedahay abaaraha biyo la'aanta iyo maaragtay u dhaga nugul maxaa la waxyaalahaas in lagu kaalmeeyo markaad garatid akhriskiisii ayaad wax ka faa'iideysaa misaal ahaan jacaylkaaga xaaskaaga hadda is qabtaan oo waayahan jacaylkiiniyo uu booraystay waad boorka ka jafaysaa sidii hore mid cusub hadduu yahay waa u arkaasaa boorka ka jafaysaan oo darsi waa ka baranaysaan kii horena boorka ka jafaysaan qof Soomaaliyeed bal afurinaysaan iyo qoysas Soomaaliyeed waadna faa'iiday kan kala qalbigii baa kuu degay ilaahay baad u dhawaatay salaadii baad bilowday ama waa sii qurxisay qalbigiina wuu kuu degay walwalkii iyo murugadiina waa kaa tagtay walaal Soomaaliyeedna murugadii baad ka qaaday anigu waxaan idinku oran lahaa saaxiib yaa labada buugba qof walba ha gato maxaa yeelay markaad mid dhamaysid lagama dhargeeyo kii kalaad furaysaa Abu Bakar baad ka dhex arkaysaa iyo maxay tahay walwalkii murugadii wuxuu ka yiri kii kalena jacaylkii iyo noloshii kalaad ka dhex arkaysaa ajarna waa ka helaysaa marka fadlan sidaas sameeyo waa idinku garab istaagsanahay waxaan rabaa inaan labadiina idin mahad celiyo Allah subhanahu wa ta'ala ha idin xifdiyo waxaan idin barakeeyo waxaan kaloo jeclahay inaan mahad celiyo oo barnaamijkan isugu soo duubaray soo hadda Umar iyo Abu Bakar sheegeenba gudoomiye Sir Daahir Cali Kulmiye oo ah gudoomiyaha ururka Alpha Trust oo samafalka aan ka mid ahay Abu Bakar iyo Umar ka mid yihiin idinkuna aad ka mid una taagan in aan ku daryeelno dadka Soomaaliyeed fadlan bil Ramadaan baa soo dhow aan ka qayb qaadano wanaaga Sir Daahir Cali Kulmiye iyo dhammaan walaalaha la shaqeeyo waa mahadsantihiin Abu Bakar iyo Umar waa mahadsantihiin intaanu buug kale iyo buugaag kale iyo wax kale isku arki doono labadiina waa idin mahad celinayaa jazakumullahu khayr وأحسن الله إليكم وكثر الله أمثالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة إن شاء الله.